kulankani maanta suxufiyiinta Soomaaliyeed ay ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud lagu xasuusinayay ballanqaadkiisii ahaa in uu la wareegayo xaaladda caafimaad ee wariye Cabdirasaaq Cilmi Balaag oo muddo 2 sano laga joogo ku dhaawacmay rasaas ay rag hubeysan ku weerareen meel aan sidaasi ugu fogeyn hoygii uu ka deganaa gudaha magaalada Muqdisho. Allah caafiyo وحد إلهي أقدر وهالكيس لكن إن شاء الله تعالى بلاك والداوينة تهلينا والداوينة داوينتيس أنا قاضي دي اللي بدأ الله درا والداوينة تهلينا xaaladda wariye Cabdirasaaq Cilmi Balaag ayaa marba marka ka dambaysa sii xumaanaysa isagoo 3 jeer qaliin lagaga sameeyay caloosha gudaha magaalada Muqdisho. kulanka wariyaasha Muqdisho ay isugu yimaadeen ayaa waxa si wada jir ah ugu hadlay Abwaan Cabdullaahi Cismaan Goore oo ah agaasimaha Radio Kulmiye iyo Maahir Jaamac Aadan oo ah gudoomiyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed iyagoona si wada jir ah fariin xasuusina u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya ballanqaadkiisina bilaa ka soo wareegta waxaan xasuusinaynaa madaxweynaha mashquulkiisa ayaa badan inay daacad ka tahay waa ognahay oo uu rabay inuu caafimaad u qaado hase yeeshee waa uu ka mashquulay waxaan xasuusinaynaa Cabdirasaaq xaaladiisu inay intii ka sii liidatay madaxweynaha marka waxaan leenahay adiga u madaxo mawla ku xil saaree maasino madaxdii dawladda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxweynaheennii bal in uu xoogiisa isugu geeyo isla markaana waxyaabaha yar ee haray ee dhiman ee dadaalka lagu baxnaanayo Balaag runtii uu fursad yar siiyo oo uu runtii arinta furdaamiyo waxaan kaloo codsanaynaa sida abwaanka uu ka dhawaajiyay ama agaasima Goore uu ka dhawaajiyay Balaag mar waa muwaadin Soomaaliyeed marna waa wariye Soomaaliyeed halganka iyo runtii dadaalka ay ugu jiraan saxaafadda Soomaaliyeed kaliya maaha xitaa muwaadiniinta Soomaaliyeed mas'uuliyad baa ka saaran oo runtii in waxa laga qaban karo xaaladiisa caafimaad hadba sida ay suuragalka ku tahay in la wajiho. ehelada wariye Cabdirasaaq Cilmi Balaag ayaa waxa ay sheegeen in xaaladda caafimaad ee wariyaha sii xumaanayso sida uu sheegayo wariye Muuse Maxamuud Jiisow ay soo wada shaqeeyeen wariye Cabdirasaaq Cilmi Balaag hadalka madaxweynaha in ay yahay dekreet soo baxday inuu yahay hadal ka soo baxay mas'uul dawladeed inuu yahay amar uu farayo inta ka hooseyso waxaan ka codsanaynaa kalkaaliyaasha iyo inta ka hooseysa ee amarkaas oo ku socdo inay dadajiyaan dadka kale heli kara inay u fududeeyaan ay noo qaadaan wariyaha naga xanuunsan inta hadhow loo tacsiyay lahay ama neef la geey lahay tacsiyada waxaa nooga fiican maanta inta uu xay yahay in loo qaado dadka uu quseeyo amarkaasna ay soo dadajiyaan waana guddi loo xil saaray xaaladda caafimaad ee wariye Cabdirasaaq Cilmi Balaag iyo la socoshada ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa waxa ay sheegeen inay dhameeyeen dhammaan dukumiintiyadii lagaga baahnaa. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka Bulsha TV Muqdisho.